الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaah rabbil aalamiin allah nagu kulmiyay madashan aan maanta wada fadhino waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto iyo reer Puntland iyo magaalada Boosaaso shacabkeeda waxaan halkan ka tacsiyeenaynaa dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso oo aan isleeyahay waxay ahayd fitan waxay ahayd shar aan Puntland hore looga baran waxay ahayd masiibo wax walbana waxay ku yimaadaan qadarta rabbi ku dhacday waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allahu naxariisto intii ku dhaawacantayna Allahu boogadhayo intii ku barakacdayna ilaahay weynaha guryahoodii si nabadgelyo ah ugu soo celiyo hantidii ku baaba'dayna dadkii lahaa ilaahay uu cawl celiyo inta kadib waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni xabad joojintii iyo baaqii uu soo saaray war-saxaafadeedkiisii xalay waxaan leeyahay shacabka Boosaaso waa arin ay ku soo noqon karaan ay ku deegi karaan oo aan isleeyahay waxay furaha koowaad u tahay nabadgelyada magaalada Boosaaso maadaama horey wasiirra uga hadleen oo ay xabad joojintii jabtay oo ay dhibaato tii ka weyn ay dhacday madaxweynuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay sida wanaagsan oo uga hadlay iyo tacsiyeyntiisii iyo sidii uu uga danqaday dhibaatadii dhacday iyo kelmaduhu isticmaalay intaba aad iyo aad ugu mahadsan yahay waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay intaas iyo in ka sii badan oo hawla ayaa ku taal ilaahay ku fududeeyo inta kadib annagu odayaal ahaan maadaama aanu halkan joognay run ahaantii waxaanu tan iyo markii arrinkani soo baxay waxaanu u fadhinay shir waxaanu la kulmaynay dhinacyada dawladda halkan ka joogay oo wasiiradu ay ugu horeeyeen iyo dhinaca kaleeto oo agaasimaha BSF marka Maxamuud Ismaan Cabdullaahi run ahaantii waxaanu wax ku dhisnay markaa wixii noo muuqday waxaanu ka taxadarnay in xuduudda iyo ciidamada Puntland qaybaheedu inay dhibaato ka dhexdhacdo in xabadoodu ay iyaga isu gudubto waxaanu door bidnay wixii markaa aanu maslaxad u arkaynay ilaahay wuxuu qadaray inayan intaa wax ku istaagin ay maanta dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo dhibaato ay timaado taa waxaan leenahay waa qadar rabbi intaasaa dhiman lahayd intaasuna waa dhaawacmi lahayd waxaanu baajin karnay ma ahayn sida madaxweynuhu yiri aana daatay dabadooda la qabtaa wixii hadda ka dameeyana waxaan rabnaa inaanu insha Allah biidmillaahi kariim wixii xal iyo nabadgeliyo iyo maslaxad aanu ku dabaali karno oo insha Allah inaanu waxba aanan la harin run ahaantii simada halkan fadhiya iyo in badan oo kamid ah dhaqanka Soomaalida ama Puntland waxay hormuud ka yihiin markasta nabadda iyo xal u helidda mashaakilada iyo fitanta ka dhacda wadanka waxaan aad iyo aad uga xumahay annagoo dhamna ka xunnahay annagoo dhex joogna inay magaaladani xabadi ka dhacdo khaasatan anigu wax badan waxaan ka hadlay nabadda wax badan waxaan u gogol dhigay dhibaatooyin iyo dhacdooyin xanuun badnaa oo dadka walaalaha oo aan odayaasha u nahay mas'uulka aanu ah inaan dhexdooda aan dhex fariisano waxaan mar walba ka taxadari jirnay wixii xabad iyo shar hurin kara inaanu ka hortagno laakiin qadar rabbi bay ku noqotay inaan annagoo dhex joogna
dhibaatada intaa leeg ay dhacdo waana waxaanan runtii aanan filayn saa la socotaan meelo kala duwan oo Soomaalidu ay u qaxday baan u tagay nabadayn Soomaaliyeed meelo dhibaato badan iyo lagu hayay muxuu ahaayay Soomaalida ay tagtay oo South Africa ay kamid tahay ayaan u tagay inaan islaaxino oo aan kala hadalno inaan dhibtoodo halka ay ama dhuugood uu soo ku daadan waxa weeye xil badan baan iska saari jirnay inaan mar walba ka hortagno arrinka marka waxaan isleeyahay waxaan dhacay waxa naga weyn bay ahayd waxaan isleeyahay insha Allah bidmillahi kariim xilligeeda iyo waqtigeeda ayaan ka hadli doonaa fariinta madaxweynahana insha Allah annagoo wada fadhina isma ahaan ayaan ka wada hadli doonaa insha Allah runtii aad waxaan uga xunahay hadalla ka soo yeeray mas'uuliyiinta sida hadda loo sheegay oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo yiri batrool bay ku shubeen khaasatan anagu tilmaamay isimo gobolka bari kaliya isimadani waa raggii dhisay dawladnimada Soomaaliya ka saaray xilligii ku meel gaarka ahaa u gudbiyay inay Soomaaliya cagaheeda isku taagto ay dawlad la aqoonsan yahay noqoto waqtiga badan la geliyay ma aha gobol ma aha qayb gaara khaasatan anigu markaan iraahdo Puntland kuma koobni dadkaan odayga u ahay geeska Afrika oo dhan bay degan yihiin ma aha kamana aqbali karno mana yeeli karno batroolna kuma shubi karno nabadda ugamana dari karnee nabadda iyo waxay ku hagaagto ayaanu ka shaqeynaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole xilligii aad madaxweynaha ahayd dhacdooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhacay oo ay shacabka ama qabaa'ilada Puntland dhexdooda ka dhacday ayaanu ilaa iyo hadda xalinaa waxa kamid ah tii ka dhacday Taleex waxa kamid ah tii ka dhacday Xumbays iyo Rako dhexdo ka dhacday waxa kamid ah tii ay odayaasha muxuu ahay simada Islaam Bashiir ay kamid yihiin isu xil saareen oo cagaaran iyo kamid ah ay kamid ahayd waxa soo dhamic waxay dhaceen xilliga aad madaxweynaha ahayd ma midnin inaan kelmadaha xanafta leh wax badan bayna soo noqnoqotay aan ku dul qaadanay ma yeelayno kaamana aqbali karno adiga iyo cid kula midka ah inay mar walba u gafaan dhaqanka iyo hoggaanka dhaqanka taas waxaan leeyahay arrinka inaad ka waantowdid aad ka fiirsatay arrinka kale waxaan soo dhaweynaynaa oo aan mar walba heel iyo hooba la garab taaganahay dhibaatada dadka ay ku dhacday oo barakacay naf iyo maal waxaan u heli karno inaanan waxba ula harin ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay hawsha dadka walaalahooda u gurmadaan wixii ay ku taakulayn karaan inay ku taakulayaan inayan muxuu ahaayay Soomaalidu halkan inta Puntland lacag laga qaado waa la geyn jiray Muqdisho markii ay dhibaatada iyo qarxidu ka dhaceen mar walba ummadda Soomaaliyeed waxa weeye way dibtu markay meel kamid ah gaadho inta kalena wuu gurman jiray haddana dhibaatadan in loo gurmado waqti maan runtii wanaagsanayn bay dhibtu dhacday oo wadanka abaari ka jidho oo muxuu ahaayay duruufo badan oo qalafsan ay ka jiraan awsha markan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed inay iyo guud ahaan Puntland inay hawshan u kacaan oo ay xil iska saaraan dadka walaalahooda dhaqaale fiican in loo ururiyo